wadani waxa uu gudaha dalka ka bilaabay ololayaal uu dadweynaha ku wacyigelinayo in dadku ka mudaharaadaan go'aanka sharci ee golayaasha qaranku ansixiyeen ee saldhigga madaxda berbera balse nasiib wanaag biseelka siyaasadeed ee uu gaadhay shacbiga awgeed way ku guuldareysteen shacbiga jamhuuriyadda Somaliland meel kasta ay joogaan waxaanu uga mahadnaqaynaa inay ka dhagaadeeyeen oo ay diideen kuwa doonaya inay dadka kiciyaan ka farxinayaan cadowgeena iyo muqdisho waxaa la mudaharaadayaan shicibka reer xamarka ah ee weli aaminsan inaynu ka mid nahay laakiin waxaa cad in madaxweynaha Soomaaliya uu yiri Soomaaliyeey mudaharaada waxaana laga yaabaa labada ceebba hadday calanka Soomaaliya ku biiraan oo ay ku darsadaana waa ceeb hadday xisbiga wadani calankiisa qaataanna waa ceeb xalay waxaa ka hadlayay DB Well iyo rag khubaraaya ayaa waxaa ka hadlayay Al Jazeera waxaana laga wareysanayay waxyaabaha maxaan ku idhaahdaa faa'iidooyinka dalkan ay u keenayaan waxaa la isla gartay adduunka oo dhan in cidda ka faa'iideysa dekada berbera gashigeeda iyo saldhigga berbera labadaba midna 25 sanadood midna 30 sanadood saan hadaan jeclahay in ay tahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliya